jiro caasha oo jaahilnimo sheegtay dhibsaya jacayl mooday kuwani waa xidigaha geeska oo ka heesaya xaflad loo qabtay sannadkan bilowgiisii 2018 waxaanay ka mid yihiin kooxaha Soomaalida ugu caansan waxay qayb ka yihiin dib soo kabashada fanka iyo suugaanta ee Hargeysa iyadoo imika la maalgeliyo goobaha dhaqanka iyo hidaha oo ay maalgashadaan Soomaalida qurbaha ka soo noqonaysa sideeba haddaba dhalinyarada qurbaha ka soo noqotay u arkaan soo kabashada hidaha iyo dhaqanka ee Hargeysa waxaan Hargeysa oo aan lahayn meel tiyaatar ah 6 sano ka hor waxa bilaabay hidda dhowr waxa ku xigay masxafiye kale hidda xarunta dhaqanka hidaha haddana waxa ku sii xigay cali jirde marka way soo socotaa beerta libaaxyada Hargeysa fiime lehdo xagga mas'aa ku taalay boort kala jeexan agteeda meelahaas oo dhan waa meelaha lagu caawiyay habeenkii ee dhaqanka uu ku soo noolaaday imika marka Hargeysa imika waxay noqotay modern city wax badan aad ka helaysid oo markaas aad u baahnayd mashaariicda ugu waaweyn xagga dhaqanka waxaa ka mid ah tiyaatarkii Hargeysa oo uu maalgeliyay ganacsade la yiraahdo Cumar Caydiid oo sheegay inay hanti badan kaga baxday magaalada Hargeysa waxa ka socda kacaan ama laba kacleen xagga dhaqanka ah inkastoo kelmadaas ay tahay kelmad weyn haddana waxaynu arkaynaa in imika tiyaatar weyn uu magaalada Hargeysa dhismihiisa gabagaba ku dhawiyay taasina magaalada dhaqankeeda iyo hidaheeda wax badan bay ka bedelaysaa waayo dhalinyaro badan ma haystaan meel ay tagaan oo ay ku qaataan waqtigooda iyadoo shaqo la'aantuna ay badan tahay ayaa tan waxa keeni kartaa inay dhalinyaradu hesho goobo ay ku caawiyaan inkastoo haddaba Hargeysa ay mashaariicdan waaweyn ka socdaan ayaa xarunta dhaqanka ee Hargeysa abwaanada jooga aanay sidaas ula dhacsaneen waxyaabo badan oo ka socda xagga dhaqanka waxaana ay sheegeen inay ka cabanayaan in goobihii dhaqanka ee dadweynuhu ay lahaayeen dad gaar gacanta loo geliyay waxa kale oo ay sheegeen in aanu fanku ku qotomin dhaqankii Soomaaliga ahaa ee hore Soomaalidu dhaqanka aad bay u taqaanaa annagoo qura maaha dad naga yaqaanaa jira oo aan riwaadana dhigin tumin heesinna ha loo yeero kuwaasoo halala shaqado dadkii wixii diinta islaamka ay ka hor yimaanayaan ha laga saaro wixii dadku diidayeen ha laga saaro dadka qabyaaladda iyo balwadda iyo eexada iyo kala sareynta ha lagala hadlo siday doontaba haatee dhalinyaro badan ayaa iyagu soo dhaweeyay oo u arka in horumarkan ay Hargeysa ka sameynayso xagga dhaqanku uu ahaa mid loo baahnaa horta Hargeysa aad bay isku soo bedelaysaa meeshan Hargeysa kale waxay ahaan jirtay meel aan la isku bixin waxa ka dambeeya 6am ama 6da habeenimo marka aad u dhacdo ana aqal ku xaroota laakiin imika waxaad u malaysaa inay soo bedelayso oo qof anigoo kala oo gabadhi ay ku dhiiran karto inay fadhiisan karto meel lagu maawala lagu daawanayo ama maxaa la yiraahdaa library meel tagi karto imika kale xarunta dhaqanka kale marka tagto waxaad helaysaa waxaad baranaysaa ilaa anagu waxaan nahay dadkii ka dambeeyay maxaa la yiraahdaa koray waqtigii dagaalka maanu helin waqti aanu ku aragno dhaqanka iyo meel dhaqankii iyo hidihii iyo dhaqankii lagu ciyaarayo laakiin xaqiiqdu waxay tahay imika in Hargeysa ay ka socdaan horumar lagu soo noolaynayo hidaha iyo dhaqanka Soomaalida isla markaana dib uu soo kabtay aweyskii habeenkii oo ay dib u bilaabantay dadkii waqtigooda ku qaadan jiray murtida iyo madadaalada Soomaaliyeed